horta boqor Xayl Silaase wuxuu aaminsanaa Soomaalidu inaanay gobonimo qaadan karaynin. waa dad reer miyiga, waa dad aan tacliin lahayn, marka waa lagu khasaarayaa. Soomaaliyana inteeda badan annagaa iska leh. asalaamu calaykum khiyaarta sharafta leh, kulanti wanaagsan kusoo dhawaada ha noolaato. aniguna waa Yaalla Xuseen Cabdi, waxaan ka soo hadlaynaa magaalada London, halkan oo aan maanta aad iyo aad ay sharaf weyn iigu tahay inaan kula kulmayo Cabdulaahi Xaaji ama Xaaji Cabdulaahi Xaaji Cabdi. Cabdulaahi Xaaji waxaa lagu tilmaamaa xiddiga warbaahinta Soomaaliyeed. muddo dheer ayaa codkiisa BBC-da laga maqlayo oo jiilal kala duwan oo badan ay maqlayeen. xaaji soo dhawow. aad iyo aad u mahadsantahay. Aad ugu faraxsanahay runtii xaaji inaan kula kulmo qof nasiib lahana helo runtii, inkastoon aad isugu dhaweynan iska warqabnay. haddana maanta waxaan jeclaa bal xaajiga inaan dadka ku xidhan ha noolaato ay bal dhegaystaan ay maqlaan. inkastood ii tiri adigu laftaada ha noolaataad ka mid tahayoo waad ku seexataho furaysyada soo jeceshahay, laakiin waxaan rabnaa maanta in Cabdulaahi lagu marti qaado noo sheekaysto. xaaji Cabdulaahi Xaaji, bal noloshiisa haddaan ku bilowno barbaarkaagii, inkastood buuq qorto rabo dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan. Cabdulaahi Xaaji noloshiisii oo dhan iyo waayihiisii buuq qiimo leh ayuu reebay oo aad heli kartaan. dhawaana lagu soo bandhigayo magaalada Muqdisho, habeen dhaweydna London lagu soo bandhigo oon ka qayb galay. xaaji, maxaad ku tilmaami lahayd Cabdulaahi Xaaji xaggee ka yimid, xaggee ku koray? waad mahadsan tahay Ayaale. anigu waxaan ku dhashay magaalada Wardheer. waa Wardheer, dhulka taariikh dheer ay leedahay. taariikh dheer bay leedahay aad iyo aad dad badan oo Soomaaliyeed waa magaalo xiriirisa Muqdisho iyo Hargeysa iyo Addis Ababa iyo waa meel bartamaha oo dad fara badan oo kala duwan oo kala nooc oo kala nolol ay soo galaan degaan oo ka shaqaystaan. marka halkaasaan ku koray, waxoogaaba halka aan joogay ilaa markaan 6 jirka 7 jirka ahaa. halkaa waan ka tegey. xaaji waqtigaad dhalatay goormuu ahaa waqtigaas? haddii wax la qoray waa waqti dheer buu ahaa. laba taariikhood ayaa isaameynaya. mid waxaa weeye taariikhda Ethiopia. taariikhda Ethiopia waxaa weeye oo loo yaqaanaa, waana taariikh ka duwan taariikhda Europeanka. Julian calendar baa la yidhaahaa. tan Europeankuna waa Gregorian. maxay ku fadhisaa marka taariikhda macnaheedu? marka taas taariikhdeedu waxaa weeye taariikhda Ethiopia Julian calendar 7 sannadood ayay ka duwantahay, ka hooseysa taariikhda kale caalamiga labadaa taariikhood ayaa muxuu ahaaye taariikhdoodu ay ku saabsan tahay. Ethiopia markii aan tegey la geeyey iskuulka, waxaa lagu qoray taariikhda Ethiopia. taariikhda Ethiopia markaa 7 sannadood ay ka dambaysaa Europeanka. markaan Europe imid, waan karayey inaan kan Europeanka aan qaato oo aan bedelo. laakiin waxaan isiri war ad bay u qaataa BBC-du markaa shaqada ka qabanayeen. Cabdulaahi Xaaji armuu khiyaameynaya oo taariikh soo hormarsanaya 7 sano. taariikhdaa hore ayaan u daayey oo Ethiopianka. aad iyo aad. marka waxaa weeye 1930 taariikhda Ethiopia bishii Oktoobar 17. taasaan ku daystay markaas, oo iminka muxuu ahay 90kii dhaafay ayaa iminka laga haystaa. marka la eego taariikhda Europeanka ah 2020. anyway, yani wax kastaba ha ahaatee, marka 32 meelahaasay noqonaysaa taariikhda Europeanka inaad dhalatay. waa sax weeye. marka adigu calaa kulli xaal waxaa weeye noloshaydu
laba nololood weeye kii wardheer iyo xarar iyo adsaba oo aan ardayga ahaa waaye iyo tii aan yurub imid oo yurub waxaa soo galay aan imid 1963 waxaanan ka bilaabay Germany oo aan tacliin u tegey ku saabsan warbaahinta waaye marka wardheer iyo harar iyo addis ababa intaba waad ku noolaatay oo ku noolay waa meelo aad u kala duwan harar wardheer waa ka duwan tahay addis ababa harar way ka duwan tahay maxay kala duwan yihiin xagga cimilada markaad eegto addis ababa waxaa weeye 6,000 oo fiit ayay badda ka sarreysaa waa meel qabow meel qabow weeye waaye hararna waxay ka sarreysaa ilaa muxuu ahaaye 3,000 4,000 oo fiit laakiin ma qabooba waa dhul barwaaqo ah oo roobku aanu ka qaadin oo wax kasta ay ka baxaan khudradda imika halkan aan ku cunno aniga yar baan ku cunisay magaalada harar aad oo aad iyo aad la yaab u lahayd waaye marka taariikhdaas wardheer marka iyadana cimiladeeda wardheerna niya waa cajaa'ib bay leedahay waa meel diiran oo yacni maaragtay aan aadna u kululayn aadna u qaboobeyn markaad u eegto muqdisho iyo magaalooyinka kale ee xataa wardheer ku dhow aad ayay u kala duwan yihiin wardheer waa meel qabow oo aad u fiican oo yacni aan kaneeco lahayn mooye imakayna yeelatay marka oo ciid macaan ciiddoodu aad u fiican ciiddoodu aad u fiican tahay wax kastaba ka baxaan haddii la beero ahay biyaheeda ayaa kala duwan xataa magaalada biyo dhanaan iyo biyo macaan ayay leedahay magaalada gudaheeda ayana sababkaa ka hadlay aad iyo aad marka wardheer qof kasta ku nool yacni waad arkaysaa xoolihiina way u dhow yihiin geelii agii iyo lo'dii oo yacni had iyo jeer hilib baad helaysaa firaysa caano firaysaad helaysaa marka dadku halkaas inkastoo cusbitaal la aanay lahayn badan aad iyo aad klinik yaryar iyo mooye haddana dadku waa dad wada caafimaad qabo oo hawadaas iyo maaragtay minacadaasay ku jiraan suntaa ayay ku jireen berigaas imikana sidii weeye marka la iiga warramay oo aan dad weydiiyey taasina waa taa weeye hase ahaatee noloshaydu nolol muxuu ahayey magaalada aan joogay ee wardheer anigoo da'yar harar baan imid addis ababa ayaan markaa wax ku bartay meelo kalena waa ku bartay hararna waktigii ugu badnaa ayaan joogay marka noloshaydu aad iyo aad bay u kala duwaneed markaa sidaa u eeg aad iyo aad marka intaanaad waay aragnimadeeda meesha ka imaanaysaa waay aragnimo leedahay magaalada addis ababa waxaa ka bilaabay markii aan tacliintayda aan dhameeyey secondary schoolka iyo 2 sannadood oo jaamacadda idaacadda Ethiopia waqtigeed bilowday idaacadda Ethiopia waxaan bilaabay 1958 aakhirkoodii waa waqti fog waqti aad u fog soo maaha Soomaaliya calan ma qaadan markaas Soomaaliya calankeeda waxay qaadatay anigoo idaacadda markaa jooga oo anu idaacadda ka seelisay oo radio Ethiopia ka shaqeynaya radio Ethiopia ka shaqeynaya warkaas ma sheegteen radio Ethiopia ma sheegay Soomaaliya inay calan qaadatay waayo waxay lahayd Ethiopia waxay lahayd wararka gudaha iyo wararka dibadda afaf dheeraadana way ku hadlishatay Soomaali bay ku hadlishatay Carabi bay ku hadlishatay Faransiis bay ku hadlishatay Af-Ingiriisi bay ku hadlishatay marka dalalka Afrikaanka kuwii calankooda qaata xorriyaddooda qaata idaacadda Ethiopia si weyn bay uga hadlisay ma xustaa markaas warkaa la sheegayay in Soomaaliya calan qaadatay oo gobonimo qaadatay ayaan ahayo waxay aad baan uga socday oo xataa calankana dee waan arki jiray calankaasi iyo waxaan soo aad uga soconay oo ka warrami jiray
markii Talyaaniga loo dhiibay وصايدة كنتمكي konton tobankaa sannadood waanu ka hadli jiray intaanay gabadnimadeeda qaadan gabadnimadeeda markay qaadatayna si fiican baan uga hadalnay xisbiyo badan baa markii dambe bilaabmay ilaa 80 xisbi ayaa bilaabmay markaasaa dadkii Soomaalida isqabsadeen markii hore dadkii Talyaaniga joogay ma baasir wax isqabsadaya ma arki jirin وبدي هلك عرض لها قولوا معلق قال كل يوم يسوي حزب الله بحث والله معي هذه marka sidaasay ahayd waqti qiibalaha joogtay oo marka Soomaalida aad ogaan karto bilow ilaa dhamaad maalin gobonimo doon ahayd maalin gobonimo qaadatay maalin dalkeeda burburay oo qaxooti tahay kaas inta ilaahay waa kugu sabay inta waa igu sabay waana u waramaysan intaas intaana waan warramay inta muxuu ahaayey laakiin markii dambe Soomaaliya gobonimadeeda qaadatay colaad xoog leh ayaa ka dhex dhalatay Ethiopia iyo Soomaaliya dagaalna wuu dhex maray laba saddex jeer waa dagaal xoog leh uu dhex maray waxa ugu weynaa kii 770 marka macnaheedu waxay tahay Soomaaliya markay gobonimada qaadatayba dagaal siyaasi ah bilowday oo labada wadan u dhaxeeya marka dacayad bay bilaabeen labaduba isu sooyaan Soomaalidu cambaarayso Ethiopia oo ay leedahay dhul bay naga haysataa dhulkayagii bay dhacday Ogaadeniya hawd iyo reserve area waa dhulka la oran jiray oo yani dhul masna aad u qurux badan haddaad aragtay kala mooyee faafan iyo meesha dhulka la yiraahdo oo yani ma aragtay waxba lagama beerinoo dee maaragtay haddii la beeri lahaa waxay ahaan lahayd wax la yaab marka dhulkaas ayaa Soomaalidu had iyo jeer ay ku taabi jirtay oo ay oran jirtay dhulka iyagii baa la dhacay Ingiriiska iyo Ethiopia ayaa loo heshiiyey iyo Faransiiska weliba marka sidaa darteed muxuu ahaayey waa inaanu anagu istiilaa waa inaanu dagaalaa oo aanu marka dacaayadihii bilaabmi jiray ayaa mar keliya qarxayo dagaal la isu rogay hub laga soo qaatay marka 64 iyo 77 wakaas labadaba waramayso wada weyd Soomaalida ka socday waay aad waa taariikh dheer markaas oo ahaayey labada idaacadood ayaa aad iyo aad u dagaalami jiray dhinacan aan joogay Ethiopia dhinaca kale Hargeysada waxaa joogay rag kala joogay Mustafa Xaji uu ka badaa aad iyo marka aad iyo aad markaas dhaxay dadku oranayay Cabdullaahi Xaji iyo Mustafa Xaji dhul baasay dadka Soomaalida waaga idaacadda Itoobiya ka maqlayaan marka faallooyin aadin diyaarsan oo Soomaaliya lagu cabaaraynayo miya idaacadda waa diyaarsanaysa faallooyinkaas waa diyaarsan marka aadan cadde iyo Cabdirashiid iyo aad wax ka sheegaysaan waxaan leedahay muxuu ahay cadde waxaan oran sheegay matalanba Talyaanigu aad ugu dhow yahay Talyaanigu isafeeyaa inkastuu madaxweyne yahay Cabdirasaaq waxaan oran sheegay uu ahaa nin diyutu gobolka u saaran tahay oo carab badan idaacadda ka sheegaysaan Ethiopia cabaarayn jiray dad atooda uu ahaayo Soomaaligiisa dalaaqad la yaab waa la yaabi jiray Soomaaliya Cabdirasaaq waxaa kaaga yeelo sheekay markuu ra'iisul wasaaraha ahaa ayaa waxaa dhacday inuu maalin ka hadlayey miisaaniyadda dalka oo aan la yaabnay yani inta saacadood ee uu hadlayey 8 saacadood ayaa low oo aan kala go' lahayn ayuu hadlayey baarlamaanka gudihiisa marka dadku intay tagaaray soo qadeeyaan ayay soo noqonayeen Cabdirasaaq qofka hadlaya magaalada waa magaalo kuugu dadku intaa qabata dadka war baa soo kootiyo maxay adeeraysa
وإن كنت أشياء وكلية سوماليدا ما أنت وحشتي بالذي سيريا يعني عنك هو ميزانية وعنك ميزانية ما بدون درجات ma markuu la yimid karti iyo hufnaan waaba kala sheegay taariikhda ra'iisul wasaare la mid ah soo maray waddanka dowlad marka laga hadlo propagandada Ethiopia nin kasta Soomaali marka si gaar ah wax looga sheegi jiray dadka Soomaalida way maqlayaan waxaas way maqli jiray oo idaacadda Ethiopia reediyogu aad badan buu lahaa Soomaaliya aad baa looga maqli jiray aad iyo aad markaasaa musiigna waa masaari jiray waxaan lahayn koox musiga samaysa ayaan lahayn aad u wanaagsan markaasaa musiga iyo warka ayaad isugu dariseen warka gudaha warka Ethiopia oo aanu si fiican u sheegi jiray warka dibadda oo Soomaaliya ay ka mid ahayd meelaha aan inta badan ka hadli jiray waxaa jiray barnaamijyo suugaanta ku saabsanaa gabayada iyo waxaa iyo jaraa'idku waxay ka qoraan Ethiopia iyo Soomaaliya jaraa'idka Ethiopia ka hadlaya marka xilli wuxuu ahaa runtii aad iyo aad xasaasi u ahaa oo yacni markii dagaaladu ay dhacaan dagaallo markay dhacaan Ethiopia iyo Soomaaliya dhex maraan dadka Soomaalida ay adsamo jooga aad bay u cabsan jireen in gudaha waddanka lagu dhibaateeyo ila dhibaateeyo lama dhibaateyn jirin laga cabsanayaan oo magaranaysa haddii xuduudda dagaalla ka dhaceen dad badan baa dhimanaya labada dhinacba Ethiopian Soomaali ayaa dhimanaya markaasaa dadkaasi Ethiopianka qaraabadoodii markaa adsamo imanaysa marka Soomaali hadday arkaan sidaasay u boodayaan oo indhaha ku cadaynayaan laakiin gacan ma qaadayaan xukunaa meesha ka jira nidaam baa jira aad iyo ammaanka ku saabsan marka Etoobiyaanku sideedaba Soomaalida Etoobiya ku nool iyo Soomaalida Jamhuuriyadda ku nool kala yaqaanaan ma kala yaqaanaan ilaa maanta waa sidaas Soomaalida Soomaali waa weeye waa sidaa weeye ma kala yaqaanaan yani markaasa Soomaaliduna xamar buu ka imanaya intuu soo galaya isagoo waxba baasaboor iyo waxba haysanin marka haddii la qabto oo la wareystana wuxuu odhanayaa waxaan ka imid ogaadeeniya xaafadda gobolka Soomaalida waxaan ka imid Hargeysa ma odhanayo waxaan ka imid Muqdisho ma odhanayo halkan aan ka imid gobolkan aan ka imid oo Soomaali badan baa degan gobolka Soomaali baana iska leh gobolka marka wuxuu ahayey sidaas ayay had iyo jeer ayay ahayd adiga ka Cabdullaahi ahaan maadaama aad radio Ethiopia ka shaqeynaysay propagandadii Ethiopia dowladdii iyo qarankii Soomaalida wax ka sheegayso adigu shaqaalaad tahay kullayba wixii lagu qoraad akhrinaysaa idaacaddiina af Soomaaliyeed ku hadlaysaa dadka Soomaalida ku maqlayaan marka ma oranayaan Ethiopianka u horay isagaa qorsay waxyaabaha inoo soo qoraan waa bedbedelaysido waxyaabahii waxaanu meeshii annagaa la soconna xaaladda gudaha ayaa la socota annagaa la socona iyagu bisha unbay wax ka soo sameeyaan marka laakiin annagu dhabta abaanu keenay markaasaanu hagaajin jiray faallooyinkooda intaanu hagaajino oo si fiican u qabanno oo aan cod fiican ku qabanno ayaanu sii dayn jiray markaasay oran jireen waa Cabdullaahi ahay waa Mustafa u tawaab تريترد وهي سوماليدا قاعد يضرب كواركان هذا بيهو سي هاي سينا dadku way ku jeclaayeen way saayeen مثل وهذه سي عاديه هاي هاي يتحقلين qof kasta Soomaali ah oo hadda Soomaaliya oo ku ixtiraamina ma jiro Ethiopia oo wax iga sheegay ma jiro aad dadka Soomaalida marka saa ka yimaadaan markay noo yimaadaan si fiican baan soo dhaweysay khayadaan lahayn maaragtay nagu dhow khayadahaasaan tagay jiray oo ka cuntayn jiray shaah ka cabi jiray sheekaysan jiray haya ka waran Muqdisho قبائل وحاصل دليل مساس
ويعني وضعت بك الله سيك يسر بلك عين كاس هي حالته waxaa la soo shaqeysay xaaji waqtigaas nin Ethiopia ninkii ugu qatarsanaa lagu tilmaamo maxaa la boqor ahaayo Ethiopia markaad yareyd ba xukumayayo Soomaalida aaminsanaa inay tahay raacayad ka mid ah raacayadiisa oo dad iska xoolo dhaqataa oo Ethiopia ka mid ah aaminsanaa isagoo jooga Soomaalida gobonimo qaadanayso aragtida Ethiopia ay qabtay aragti siyaasi ay ahayd aragti ijtimaaci waayo oo ay dad iyo dawladba qabaan in Soomaalidu aysan noqon karin dawlad oo ay ahaayeen dad iyaga ka mid ah horta boqor Hayle Selassie wuxuu aaminsanaa Soomaalidu inaanay gobonimo qaadan karaynin waa dad reer miyiga waa dad aan tacliin lahayn marka waa lagu khasaarayaa Soomaaliyana inteeda badan annagaa iskale waa Hayle Selassie marka Hayle Selassie wuxuu qabo dawladduna way qabtay wasiirada ma oran karayaan boqoroo maya sidaa ma ahe lama dhihi lama oran karo yes waa runtii boqorku sidaa yani waddankayagii weeye markaasay noo hanjabayaan ay leeyihiin waddan annagu aan leenahay hana la siiyo waa dhulkan yani maaragtay Soomaaliyaba ka weyn dhulkan Ethiopia imika ay xukunto ee Soomaalidu ay degan yihiin Soomaaliya oo dhan buu ka weyn yahay waa dhul weyn aad iyo marka aragtidaas waa qabay qabay ka ahayd shacabka Ethiopia adigu aqoontiisu waa yaray marka dagaal dhaco ayuubay idaacadda ka dhegeysan jireen dee waa maxay maxaa meesha ka socda waa maxay war Soomaalida maxaa noogu diray maxay noo aflagaadeynayaan maxay noola dagaalamayaan maxay noola coloobeen way dadkii yidhaahaan waa dad muxuu ahay aqoontoodu yar tahay hooyadooda ay yihiin waqtigaas laga hadlayo ilaa 7% boqolkiiba 7 ayaa wax qoraysaday waxna akhriysay marka maxaad u malaynaysaa dad boqolkiiba 7 aanay waxba qori waxba aqrin intaas aad iyo maxay Soomaaliya ka garanayaan maxay Jarmal ka garanayaan wixii dawladdu u sheegtay qabaan maxay Afrika ka garanayaan maxay ka garanayaan intaas 7% ayaa idaacadaha dhegeysan jiray Ethiopia kale idaacadda way dhegeysan jireen music bay ka dhegeysan jireen maxay ka dhegeysan jireen suugaan bay ka dhegeysan jireen amxaari ah marka amxaariga si badan looguma sheegi jirin arrimaha Soomaaliya marka Soomaaliya baa lagu sheegi jiray allaha waxaa si xoog leh looga hadli jiray oo idaacadda Ethiopia ay u faafin jirtay markii ciidamadu ay la wareegeen xukunka Soomaaliya oo hub badan la keenay ruushka ka keeneen oo hubkii ay soo bandhigeen oo markaasaa dawladdu waxay tidhaahdaa Soomaaliya waxaa la siiyey hub khatara oo dunida oo dhan lagu baabi'in karayo war Ameerikay dhegeysta waxay doonayaan Ameerikaanku inay markaa hub siiyaan iyana Ethiopia way sii jireen laakiin hubkaas muxuu ahay Soomaaliya mid u dhigma ma jirin oo ruushka bixinaya annaguna marka sanad walba kacaanku markuu dhashayna waa dowlad tusaale samayn jiray cudud military baaleba iyo markaasa amxaaradu way yaabi jireen way dhixi jireen marka ujeedkuna waa in iyaga la tuso inaanan meeshani waxay joogaan dhulkanna inaydan nabad ku haysan karaynin dee waa kuwii ciidamadu dagaalamay ee muxuu ahay gaadhay ilaa Dirdhabe ayay gaadheen dhinaca kalena waxay ka gaadheen dhinacan muxuu ahay Kenya intay ka baxeen ayay Addis Ababa waxay u jirsadeen 150 kilomitir 150 kilomitir bay ciidamada Ethiopia ay u jirsadeen waa cabsi weyn weeye oo markaasna dee ruuskiibaa usoo guriyay iyo kuubaankii ayaa jaamacay Ethiopia marka ciidamadii Soomaalida waa la soo celiyey marka ruushku waxay yidhaaheen ciidamadan aanu tababaray ma laynayno dusha kama garaacayno laakiin ha ka baxaan
dhulka Ethiopia ay qabsadeen oo ninkii generaalka ahaa ciidamada Soomaalida tababari jiray ayaa dhinaca kale soo maray balaag waxa siyaasad xumada halka ka dhacday waa siyaasad aad khatar u ahayd aad iyo aad waay marka muxuu ahaayey Soomaalidu waa soo baxday dagaalkaas weliba waxa la sheegaa ruushku inaan col noqonay inagoo dagaal galayno isaguna hub iyo ciidan bana siiyey military ahaan Soomaali waa guuleysata la yiraahdaa laakiin siyaasad ahaan waa laga adkaaday wakaas siyaasadda laga adkaaday waayo hubka Soomaalidu hubkay haysteen wixii loogu talagalay waxaan ahayn bay isticmaaleen oo yacni ay ciidamadii Ethiopia jigjiga joogay dhagax buur joogay joogay qabri dahbe yani dhaawac weyn bay u geysteen ma ogtahay oo yani waa kuwii rilaxay jigjiga waa kuwii ka saaray dhagax buur waa kuwii ka saaray muxuu ahay qabri dahbe waa kuwii ka saaray yani godayba ka saareen marka Ethiopia ma lahayn ciidan u dhigma ciidankeena ama ciidanka Soomaaliyeed sidaa darteed waxay noqotay loo soo gurmado oo Kuubaan iyo Yemen iyo loo keeno Yementu saaxiib bay la ahaayeen muxuu ahay dowladdii Soomaalida kacaanka markaas fasax iyo ninkii loola saray oo Baksis Leninista ahaa shuuci buu ahaa moogta somehow haddana wuxuu taageeray Ethiopia soo raacay waayo ruuskii baa ku yidhi Soomaalidu waa gardaba yihiin dhulkii Ethiopia ayay qabsadeen adigu haddaad tahay Ismaaciil fasaaxo waa inaad taageertaa Ethiopia oo ciidamo adigu jirtaa sidaasaa u yeelay Fidel Castro waxaa lagu yidhi annaga naga maqlaysaa talo raac muxuu ahaye Ethiopia isagoo la marti qaaday Fidel Castro oo bulgiso tegey ayaa stadiumkii maaragtay magaalada Muqdisho oo dabaaldeg loogu dhigay ayuu wuxuu yidhi Ethiopia ha noolaato dagaalka ha la joojiyo Soomaalida gardaba buu yidhi xamar buu ka leeyahay markaasay dowladdii Soomaalidu aad u carootay oo ay sii okay waanu soo gabagabaynay dagaalkaagii naga bax marka nin kibir badan aad iyo Maraykanka isku taagi jireen yani nin la yaab laho revolutionary aho ayuu ahaayo ma garanaysaa markii hore saaxiib la ahaa Soomaalida oo arday Soomaaliya ay wax ku barteen kuba taariikh dheer waxay aad iyo aad weliba xilligaa waxa la xusuustaa radio Muqdisho waxa baxay magac la kuba naas dheer wakaas burburadadii idaacadda ka baxaysa wakaas ayaa ka mid ahayd waaya xaaji waxaan rabaa ku weydiiyo kulliba xamar waa tagtay dhowr jeer xamar tagtay waxaad ii sheegtay meeshii noloshaada ugu hurdada macaanayd inay xamar ahayd bal iga sheekee maxaad ku tiri sidaas xamar waxaa la yidhaahdaa koosha laakiin sida Jabuuti iyo Berbera uma kulula weyn baa sista nacaw baa sista dadii ayay ku taalla magaaladu dadda maxaa yeelay weyndaasi ka soo kacaysaa dadna buuxeedii waad maqlaysaa haddaad joogto matalan baa hudeelkii Curuuba waxay lahayd qayb badda ku jeeda halkaasaad fadhiisanaysaa waxbaad dalbanaysaa koobkiga maaragtay markaad cabto hurdadu way kaa tegaysaa soo maaha adiga hurdaagu isiisa gab ayaa marka koofi cabo marka kofeegii iyo xeebtii iyo sinaylaysaa dheecawdii iyo kale iyo cuntadii cuntada alayaablaga way lahayd magaalada markaas marka waxaa dhacday meeqa jeeraad tagtay xamar afar sentyer waa tegey marka kugu badnayd meeqaad joogtay adigu waxaan joogay ilaa 6 toddobaad baan joogay 6 toddobaad waa bil iyo baraad joogtay oo aan shaqo qabanayo waraysi qabanayo
maaragtay dad la kulmayayoo markaasna muxuu ahay BBC-da iyo Soomaalidu oo isku fiicnaayeen laakiin markii dambe ayaa xaalku xumaaday oo BBC waxaa loo bixiyey benbensi maxay sababta BBC madaxweyne maxamed siyaad maxwe ayaa ereygaa bixiyey sababtu maxay ahayd sababtu maxay ahayd waxaanu sheegi jiray jaraa'idka muxuu ahay ingiriisku waxay Soomaaliya ka qoraan oo negative ahaa ay ambaaray jireen oo oran jireen waa dictatorship muxuu ahay Maraykanku waxay oran jireen mataqaana markay wax ka qorayaan jaraa'idka Maraykanka waxay the benign dictator dictatorkii naxariista badnaa ayay qoraan jaraa'idka Maraykanka ayay qoraan waayo magaraysa dictatorkii naxariista badnaa ayay qoraan benign ha waayo ingiriiskana ingiriisku waa dictator khaladan ayay oran jireenoo yani ruthless oo ka laayayoo xaykaas oo magaraysa ayay oran jireen marka jaraa'idku waxay qoraan annagu khasab baan nagu ahay inaan sii dayno waayo markaasaa kuwaasaan tarjibi jiray oo aanu oran jirtay Soomaaliya waa dikeysi kalitalis baa meesha ka taagan gulinkaa garabka u saaran iyo caynkaas oo jaraa'idku siday sheegayaan ayaanu oran jiray laakiin marka waxay oran jireen Cabdillaahi Xaaji baa dacaayadda samaynay isagaa samaystay BBC marka laga hadlaa Xaaji Cabdullaahi dadka Soomaaliyeed ma aqaano dadka kale waxay saacaan ugu noqon waayeen laakiin BBC haddii la soo qaado magaceeda Cabdullaahi Xaaji ku labaaran maxay saa ku dhacdaa isleeda waxa ku dhacday waxa weeye warkan sheegisay ayaa dadka ka xanaasin jiray kana farxin jiray barnaamijkii toddobaadka iyo Afrika iyo barnaamijyo kale wax weydiin ogaal oo taariikhda ka hadli jiray wuxuu ahaayey dadka madaxda sida Gandhi oo kale sida Nelson Mandela oo kale ayaa ka hadli jiray oo si qurux badan aan igseebisay markaas dadku dhaysan jireen oo macaansan jireen toddobaadka iyo Afrikada waa meel waxay ahayd polemic ay maaragtay zacaayad iyo waxaas ha ahaato laakiin si nidaamsan oo qurux badan ayaana u sheegi jireen toddobaadka iyo Afrika toddobaadka iyo Afrika markaas waxaana taagi jiray music wadnaha soo dhufanaya sameeyey nin oran jiray Ted Heath ma aha ra'iisul wasaarihii Britas waa nin kale oo Ted Heath la yidhaaho oo musigaa sameeyey marka musiga waxaa lagu magacaabi jiray Africa dances marka sidaa ayay dadku wareegi jireen bal aamusa Cabdullaahi Xaaji waa isla kala bixinaya Cabdullaahi Xaaji oo nashaad waada malay kareen aad iyo aad marka aad iyo aad barnaamijkaasi uu ahaa in masalan meel kasta Soomaalidu marka aan saragno iyo toddobaadka iyo Afrika u daya toddobaadka iyo Afrika iyo markaasa wuxuu ahaa music horta la yaab leh oo yani adiga ku dhagaada wadnaha ayaa soo dhufanaya barnaamijkaas marka musiga lagu saaro musiga la yaab malahu ahaa waaye marka taariikhda dheer keenaysa sideetanaadkii sagaashanaadkii waagii kun waa 40 sannadood oo taxan oo kala go' lahayn ayay ku iqlayeen dadka ayay codkaaga la socdeen barnaamijkii toddobaadka iyo Afrikada ma jirin markii aan meesha imid markaasaanu bilownay BBC anaana muxuu ahay soo saari jiray anaana qori jiray anaana soo jeedin jiray dadka la shaqayn jireen waa jireen waaye goormaa timid BBC-da Xaaji London aad soo wareegtay waxaan BBC-da bilaabay 1969 bishii November 22 waqti fog
markaas laba iyo toddobaatankii kacaanku wuxuu jiray 2 sannadood markaasaa la ii diray muqdisho oo yacni wariyayaal kale waa la dili karayay laakiin wariyayaashii la doonayay inay tagaan way diideen oo waxay yidhaaheen ma tegino muqdisho ajnabiga ma soomaalida ahaa soomaalida maya ajnabigu way socdaayeen waa loo diidanaa inay tagaan waa loo diidanaa marka soomaalida laftooda ka baqayeen raggii soomaalida BBC joogay inay xamar tagaan sababtoo niman soo baxay xilli dalku dimuqraadi ay ahaayeen kacaana dhashay gadaashood markaas kacaankiina gacan kulul buu ku hayay dhibaato badan buu u geysan jiray iyo wariyayaasha shisheeyaha ah ee waddanka soo gala waa loo ogolaan jiray qaarkood laakiin waa loo fiirsan jiray waxaa qabanayaan iyo ma garanaysaa laakiin dareen shacbiyahoo wanaagsan oo farxad wadata ayaa jiray kacaanku markuu dhashay wakhtigiisii hore o dhan dadku way jeclaadeen way la jaan qaadeen wuxuu u muujiyey inuu ka jawaabayo duruufihii iyo baahidii jirtay 12 sannadood ugu horreeyey wax weyn baa la qabtay iskuuladii tacliintii bale primary ilaa university ayaa bilaash lagagu baraysay markaasaa weliba ardayda waxaa la sii jiray uniform dhar baa la sii jiray iyo pocket money iyo jaamacad kulle muxuu ahaayey dugsiga koowaad ka labaad ka saddexaad kulle marka kacaankii curdina 27kiiba waa tagtay ayaa xamar tagtay bal xamartaa ii sawir say ekeed xamartaa waqtigaa tagtay maadaama horey aanan u arag waxaan arkay wax kasta waa cusub yihiin guryo cusuboo la dhisay waddooyin la dhisay meel kasta nal la sameeyey jardiinooyin waxaana ku beero yaryar oo magaalada gudaheeda laga dhisay oo microphone lagu xiray oo idaacadda laga soo daynayey muqdisho warka iyo maxaaye muusiga iyo waxyaabaha caynkaasa markaasay soomaalidu u bixiyeen idaacaddii amba ilmaqab amba hay maqlin ugu khasban tahay baa la samaynaya beertii baa kuraahi la dhigaya marka haddaad fadhido kursigaas waad maqlaysaa markaa ka horseeyey kacaanka shaceen waan sameeyey magaraysa siiba dadka xoolaha leh ma jecleen dadka xoolaha leh waa burjuwaasiyiinta dadka muxuu ahaayey dhalinyarada aad bay u jeclaayeen dumarka aad bay u jeclaayeen waayo muxuu ahaayey waxaa la siiyey caruurtoodiina iskuul baa la siiyey bilaasha lacag baa la siiyey dumarkiina inta loo sameeyey ururo ayay ururadaas intay habeenkii tagaan ayay ka sheekayn jireen oo ninku ma khasbi jirin naagtiisu inay tagto muxuu ahaayey meeshaas haddii uu diido way ashtakeynaysaa waa kacandi waa khatar marka aad iyo aad ba 16 sannadood ugu horreeyey cajiib xawle xoog leh ayuu ku socday by the way aan kuu sheegay ayaalow imikaad xusuustaye xayla silaase waa kii tegey muqdisho 74 dunida meel aanu marin ma siinin intii uu boqorka ahaa 50 sannadood buu boqor ahaa waddan kasta wuu tegey 1916 14 ayuu wuxuu tegey Yurub oo boqorro ay xukumaan socdaalka 74 wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey ee uu dibadda u baxo waa la afgambiyey wuu u dhintay markaas xamara ugu dambaysaba meel uu banaan dibadda soo arkaa waxa la yaab kaliya waxaa weeye meeshii uu nacbaa Soomaaliya oo si fiican loo soo dhoweeyey oo waftigii la socday nin baa ka baxsaday governar ahaan jiray guddoomiye gobol ahaan jiray
ويجي إذا بدي خبصري مقالة من قصة إلى باريا أيو يجي دمان كري وان دمان عن كل وين اللين دونان وخرج أنا ومتجيو كنا نقول يا إثيوبيا أمريكا تري أمريكا كل شيء ودرس صراع تونك واجري هذا ثلاثة مو أوجا اللي دلي دورة إلا أفقديه دورة لأن بكرة تغربوها بركو يلد مقدسات واي مو أوجا إلا أفقديه إلا خجي سلالين دورة مو أوجا يحزن بالله لي جراسو كورنيلو وزيرو لا إله إلا الله كبير كي إثيوبيا خجي بقى هاي ودك وذي ayaa la dilay ayaa waa lixdan bay ahaayeen adigu marka idaacadda joogtaa BBC da wariya tahay waad ka warrantaa arrinta adduunku soo arkay marka ninkii khatarta ahaa ee gobolkaas ugu weynaaye boqorka muddada dheer ahaa in inta la dilo mataqaanaa kursigiisa lagu fariisto in la dilo ilaa kursi hoosta lagu waasay ayuu sheegay magiis waxay maarayaan laakiin jaraa'idka Ingiriis waxay yidhaaheen meeshii lagu xiray oo ahayd qasriga boqortooyada ee uu maxkamad had yeeshee uu isagu guddoomin jiray ayaa lagu xiray markaas laba nin ayaa u diray Mangiis Maxamed Maryam sida la sheegayay barkimo intay afka saareen ayay baktiyeen waa sida jaraa'idka Ingiriiska markaas ay qorayeen sida jaridada Times ayaa warkaa qortay nafta lagu celiyo nafta u dhinto Mangiis Maxamed Maryam wuxuu yiri odaygeedu wuxuu ahaa nin da'weyn oo bukaan ahaa waa runtii bay ahayd uu bukaan buu ahaa da'weynna wuu ahaa sideetan meelahaasuu ahaa magarasa marka anagu baadaan dilinay yani maaragtay wuu xanuunsaday wuu dhintay كلنا بدو درنا ما شاكتين ما شاكتين هاي لكن waxa la yaab kale waxa weeye wuxuu yiri markuu ka baxayay Muqdisho Muqdisho waxay noqotay meel aan aad u seexday si fiican u seexday waana runtii taasi aniga waxa laga hayo inuu yiri Muqdisho meeshii hurdo fiican seexday Muqdisho si fiican baan u seexday marka fariinta muxuu ka waday أنا لم مكودي ما شيء ساعته مصيف على ليس رولي سيف عبا ليس ري وأنا في حري سيف عبو سحري ويا قبلي ويا بكرة بجالي أدسابا وقبلي ويا هبيكي وأنا الدستوري وتا وإن المحاجب سيدتها موقتها بقدشوا زب بس لبسي لكن وحكوا لي هاي لا شافي قلت له والله يا واي marka meel la heli kara maahay meel la heli kara maahay wuxuu yiri waa magaalada aan sida xoog leh ee quruxda badan aan u seexday si fiican waa la ii soo dhaweeyay ayuu yiri intaa waxa gacanta ku ayuu la socday Maxamed Siyaad oo beerka sabeeyay waxa dhacday habeen iyagoo jooga tiyaatarka oo yani barnaamij riwaayad ajaa'ib leh ay soo bandhigeen fanaaniinta muxuu ahaayey qabalada waa bari waxay ahayd la heli kara maayo la yaab leh bay ahayd la yaab leh aqoon wax kasta marka min jaamiciya bishaaradii ayaa la sii jiray qabalada sababtoo nidaamka oo kacaaniga ama dictatorka waxa lagu yaqaanaa la yiraahdaa raadiyaha iyo fanka waa wuxuu waddanka ku xukumo waa dhigihii dadka gobollada marka aad loo qadarin jiray fanka aad loo qadarin jiray aad oo dadku aad bay ficlaayeen musiga la saarayo iyo sida loo dadkii la hanuuniyaa la rabaa hanuunintii dad baa dibadda laga keenay oo musiga qora oo dad badan oo Soomaaliya baray sida musiga loo qoro markaas musigooduna aad la yaab u lahaa wax la heli kara xasan aadan absar iyo raga soo baxay iyo gabadhii Sahra Ahmed iyo kuwii kale ee saado iyo Maryam Mursal Hiba Nuura kuwaas marka ay heesayaan musiga muxuu ahay
daba socda ka dambeeya ee u tumaya waa qaddooda qoray muxuu ahaye muusiga qoray bay ahaayeen caynkaas ahay khasar daahiriya balaga marka wuu yaabay boqorkii waxa kas ka dhacaya meesha waxa meesha ka dhacaya yaa waxaanu sheegay baa la yidhi oo maxamed ziyaad u sheegay in horumar weyn Soomaaliya ay gaadhay oo yani maaragtay taasna yani wuxuu u tusayey in Soomaaliya khatar weyn ay ku tahay muxuu ahaye Ethiopia xagga horumarka xagga dhaqaalaha eeg miisaaniyadda Soomaaliya waqtigii Cabdirasaaq iyo Aadan Cabde iyo waxay ahayd 5 milyan oo pound sanadkii wale 5 milyan oo pound sanadkii waa 7 milyan meelaha 8 milyan oo dollar waqtigii dambana markii dowladdu burburtay miisaaniyaddu waxay ahayd 400-500 milyan oo dollar marka lacag maxaa lagu qaban lacag badan waxa ugu badan ciidan la gelinayo ciidan xoog laha jiray lacagta marka waa dareemi kartaa wadan ciidan xoog leh waay marka qatar mar walba Ethiopia qatar warkaysa horumarka Soomaaliya marka waxa la yaabay Hayle Silaase oo colaad xoog ka dhaxaysay Soomaaliya in uu tago shirkiisa muxuu ahaye Afrikaanka ee Muqdisho safarkiisa ugu dambeeyay noqdo waa taariikh weyn taariikh weyn aad iyo aad oo yani waxa la yaabayso waay xaajiga waxa la yiraahdaa waa nin dhaqan Soomaaliyeed aan lahayn Soomaalida la yaqaan hadday noqoto xaajigu waa nin ballanta ku adag dabeecad ahaan waxa la yiraahdaa waa nin maxaa la yiraahdaa waxaad ku ballantaan waxaan ahayn aan aqbalaynin nin deeqsi ah oo maaragtay xitaa aan ogolayn in shaah laga bixiyo Soomaalidu wax badan kugu amaanaa ariga soo baadga bixisay aan ogolayn laakiin ma ogolayn sababkii xasuusta xataa ma ogolayn xaaji marka xaajiga barbaarintiisa dhaqankan ka duwan Soomaalida oo hadday noqoto xurmada Soomaalidu waxyaabo badan oo wanaagsan ay leeyihiin laakiin marka noqoto disciplineka askarinimada ah oo aad moodo in lagu tilmaami karo nin xare ciidan soo maray xagee ka yimid su'aashaas horta waa su'aal aad u xiiso badan waxaan wax ku bartay waddankan Ingiriiska iyo Germany labada dalba dadkoodu waa dad aamusan ma aha sida Talyaaniga iyo sida Isbaanishka iyo qaylada badan oo furfuran maaha marka dadkaasi sida ay u dhaqmayaan waa inaad u dhaqantaa kow taasi waa mid waana very important aad bay iigu leedahay aniga Ethiopia dadku labada dalba dadka ku nool way ka aamus badan yihiin jarmalka Ingiriiska kasii aamus badan yihiin kulama hadlayaan haddaad isbarataan yani waa waxoogaa yaryar baa shee ka jirtaa midda kale dadku way cabsadaan dowladda way ka cabsan jireen oo yani waxaa laga yaabaa hadalka uu qofkaasi sheego in security council security ayaa jiray ammaanka waaye marka ninkaasi waxaa laga yaabaa inuu intuu xafiiska siyaasadda tago sirdoonka uu yidhaaho hebel dowladda ayuu cambaareynayay markaasaa waa la kala baqayaa waa aamusan yihiin waana nidaam generations jira weye meel la aamusan yahay maxaad oran karaysaa adiguna waa inaad aamusnaataa af daboolan dahab saaxiibada waxoogaa baad la sheekaysanaysaa amxaarada waa la sheekaysan jireen anigu waan iska hadli jireen laakiin iyagu ma hadli jirin taasi aad bay ii saamaysa anigoo yarba dee waan tegey adsawa marka dadkaas dabeecaddoodii baan qaatay waan aamusna badnaa oo yani maaragtay ma qaylqayli jirinoo ma hadli jirinoo Soomaalida markaan la joogana inta badan ma hadli jirin anugu
waad urursaneed waa urursanaa waaye iyo labada dale aad ku kortay dhaqankooda dhaqankoodii ballanta marka ballamaha ballanta waxaa weeye horta muxuu ahaayey jarmalku waxay leeyihiin 15 minutes 15 daqiiqadood ayay ku siinayaan haddii 8 galabtii aad la ballanto fiidkii la ballanto 15 daqiiqadood ayuu ku siinayaa 5 daqiiqadoodna wuu ka soo horeynayaa discipliinka aad bay igu adag yihiin ballanta aad bay igu adag yihiin ingiriiskuna waa sidaas oo kale waxaa horey kuu marinaya dhaqaalahaaga siyaasaddaada bulshadaada horey u mariyaa waxaa weeye ballanka oo aad xajiso bal u fiirsaad aad iyo aad diinteena waa nagu adkaysa ninaan ballan lahayn waa ninaan diin lahayn marka muxuu ahaye dadki haddii aad la ballanto waxaa laga yaabaa shaqo weyn oo uu qabsan lahaa inuu uu ka baaqdo oo adiga kuu yimaado oo aad markaa sheekaysataan amba waxuun aad ka sheekaysataan amba marka qiimahaasi ku fadhisaa qofku inuu waqti kuu soo lumiyo dartaa meel u yimaado wakaas kuu yimaado aad daraadda intuu u yimid haddana aad ula imaan ama ka soo daahdo marka waa cay weye waa gaf waa edeb darro weeye iyo quursi quursi baa loo qaadanaya war ninkii sidaa iigu quursaday muxuu iman waaye laakiin dhaqankeena soomaalida marka la yidhaahdo ballanta markaan lixda kula ballamo waxaan leenahay waa soo kaaga daran xilligii ballanta ayaa guriga ka soo baxayaa ballanta waa la jooga exactly waa sidaa weeye markaasaa haddii aad la hadasho oo maxaa ka micnaa maxaad qabsan lahayd ya sugt madaxa kula ballamay hadda kula ballamay ballantu saacad gudaheed ayaan isugu dhibanaynaa marka 8 aad ii qabatay laakiin inaad joogto waa filayay maxaad u tagtay isugu weyn waa dareemi karaa marka dhaqankaaga marka cabdulaahi waxa lagu yaqaanaa nin aad u ilaaliya ballanta oo aad iyo aad oo dhaqan wanaagsan leh aad iyo marka taas Soomaali ku cilowdeen ballan yaraantaas dad badan baan wada hadlin ballanta darteed xamar waxaa kusoo arkay xaaji nina wuxuu ku leeyahay hebel lalama shaqayn karo maxaa dhacan leedahay gaalgaal iska dhigaa ballanta ku adag yahay exactly runta weeye ayaan gaalgaal war maxaad gaalgaal iskaga kaya dhigaysaa gaaladu ballanta iyaga innagu Soomaali waynu nahay way furfuran nahay saacad gudaheed baan isugu imanaynaa 2 saacadood gudaheed baan isugu imanaynaa innagoo aroortii 8 ballannay ayaan 4 ku imanaya galabnimo meeshaad joogaysaa ma joogas Mustafa Sheekh cilmiga waxa laga hayaa wuxuu yiri wax allaale wixii islaamka lahaa waxa qaato yiri gaaladii oo wanaag tawxiidkum baa ka maqan inay shahaadaan bas ka maqan ya marka ballanta iyo waxa soo dhan iyo naxariista iyo sharafta iyo waxa soo dhan waa wax islaamku lahaa way iyo gargaarka dadka ay taageerayaan aad saxaabtiiba sidaa saas ahay oo habeenkii bay intay guureeyaan magaalada galaan ayay dadka muxuu ahaye dawarsanaya iyo dadka liita iyo bay la sheekaysan jireen iyagoo madaxa soo duubtay xafiiskooda markay tagaan bay yidhahaan halkaas waa in cunto la geeyaa halkaas waa in hebel wax la siiyaa gabadhaasi kaasi dhibaataysan tahay hala caawiyo kuwanina saasay sameeyaan ibad xaaji waxaad sharafta ku lahayd ama ku yeelatay waxaa ka mid ah noloshaadii hal mihnad baad ku jirtay laga soo bilaabo maalintaad shaqo bilowday ilaa maalintaad ka gabowday ood ka fariisatay waxaad ahayd nin wariye ah ama mudiic ah oo idaacad un ka hadla wiigaa ma isku dayday wax kale inaad gasho wax kale oo aan bartay maadaama waxaan bartay beeraha cilmiga beerahaan bartay magaalo amba la yidhaaho adsaba dhinaca waqooyi kaga toosan ayaan 2 sanadood iyo bad aan baranayay
beeraha taa waan ka shaqayn kari lahaa laakiin waxaan aad u jeclaa saxaafadda warbaahinta waraysiga barnaamij samaynka suugaanta ayaan aad u jeclaa markaad aad suxufi tahay oo idaacad aad ka shaqaynayso idaacadda warka oo keliya maaha warsiga oo keliya maaha barnaamijyo badan baa ku duuban oo ku hoosida sida barnaamijkan dheeraa ee la oran jiray waxweydiin ogaal oo yani aad iyo aad u xiiso badnaa barnaamijka jaraa'idka uu soo koobayay ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa barnaamijyo ku saabsana yurub dalalka carabta meel kasta barnaamijyadaasoo dhan baan haysaray marka waktiba uma haysanin aan ka fikiro meel kale inaan shaqo u doonto shaqadadan waad jeclayd shaqadana aad u jeclaa yani maaragtay 40 sannadood ee aan BBC u shaqaynayey maalin qura ma habsaamin way qoran tahay taasi faylkeygay ku jirtaa allahu akbar alxamdulilah maalin qura ma xanuunsanin alxamdulilah asar qaadanba 40 sannadood 4 cisho ayaa madaxweyne igu dhacay awgii aan guriga u joogay 4 cisho way qoran tahay taasi way qoran tahay marka BBC-du aad iyo aad bay runtii ii ixtiraami jirtay oo yani dadkan waraysanan ayaan lo dad macno leh waddanku wax soo maroo dhan madaxweyne ku-xigeen ra'iisul wasaare taliye ciidan aqoon-yahan beeraley dad bulshada qaybeedii oo dhan ugaasyo dad aan la waraysan jirinba ayaad cod siisay ayaad la kulantad waraysatay ugaasha ciisaha ugu dhintay allah u naxariistee oo weligii aan waraysi bixin suldaanka cafarta ugu dhintay allah u naxariiste aan weligii waraysi bixin ayaa waraysa dad badan oo aan weligood la waraysan ayaa waraysa dad aadan filaynin inaan waraysan karayo ayaa waraysa islaantii allah u naxariistay khadiijo macalin uu furay madaxweyne maxamed siyaad ayaa waraysay bal su-aasha weydiiyey su'aalo badan baan weydiiyey laakiin middaa ka xusuusta waxaan ku yidhi khadiija madaxweynuhu marna ma ku dilay sideedaba haye ninkan askariga xoogga badan oo laga cabsado marna ma ku dilay sababtaad u weydiisay sida xaasha ima dilin mayba nin yaable buu ahaa weeye bay igu tiri mar dambe waxaan maqlay inuu mar dilay laakiin ay kaa qarisay iga qarisay hawaaye walaha markay ka bax siyaasad baya markay siyaasadda soo gashay siyaasaddii ku jirtay iyane aad u saamayn badan weliba xoog badan lahayd soomaalida habar khadiija u taqaan habar khadiija daxwu oran jiray siyaasadda miyaan iskarab ordayna ayuu oran jiray ma ogolayn dumarkiisa iyo wiilashiisu in ay siyaasadda dhexgalaan xaqiiqatan waxaa laga hadlaa markii ilmihiisa inkastoo xilal ay wada qabtaan dowladda ku jireen haddana kuwa ugu eedan badan ay ahaayeen marka loo fiiriyo mujtamacii ku jiray siyaasadda owlaadda kale ay wasiiradu dhaleen ama madaxdii kale dhaleen magaalada waa laga joogi waaya layidhaha waa kuwiisu waa edab bay lahaayeen aad iyo aad waayo sayay ka baqayeen nin adagu ahaa qoyskiiska ma ogolayn maaragtay caruurtiisu inay fasahaad sameeyaan oo yani si gaara iyaga loo naafuujiyo caruur badan dee wuu lahaa marka sababtaad khadiijo u waraysatay mama khadiijan waxay ahayd saameyntay lahayd ood ogeyd inay awood leedahay dalka markaas taasa markay tiri maya xaashaa lilah ima jirin weligii ima saaman ayaa markii dambe waxaan maqlay inuu isu carooday uu jilay wiilna
siyaasadda ka baxmiyana ku oran هذه دلايدنا waa jirtay aan haba yaraatay siyaasadda shaqo ku lahayn ama wareysanin waayo iyagu qof aamusan bay ahayd oo aan maxaa dhexgelin jirin siyaasadda marka dad badan oo aan wareysay baa jira oo runtii ayana aanay wareysanin marka buuggayga kuma aanan soo darin waayo maxaad soo dari karaysaa 200 oo qof ayaa sheekooyinkooda ku jiraan wixii Afrika afarta ka sano marka waa qayb labaad in la qoro waxaan sheegi kari waayay dhalinyaradii aan wada shaqaynay oo aan kulligoodba wada hayo yaa ka mid ahaa yaa ka mid ahaa maanta aan xusne waxaa ka mid ahaa waxaan markaan 69 markaan shaqada qabtay waxaa joogay Ismaan Suule حسين محمد بن مالك waxaa joogay Cusmaan Xasan Badawi waxaa joogay niman iyana outside contributors ahaa oo marmar BBC u shaqayn jiray oo Sayid Suleymaan wiiluu dhalay Cabdisalaam Sayid Suleymaan la oran jiray raggaasaa joogay oo aan ugu imi markii aan meesha imidna intaasoo sannadood waxaa soo maray oo rag badan oo anigu aan maaragtay waayo waxaan noqday senior producer ayaa noqday meesha waa ku gabowday senior producer waxaan ku xogay ninka madaxda ah waaye marka anigu iga tashan jiray runtii markaas qofka la qorayo iyo muxuu ahay qofka wax la siinayo marka maadaama aan qiimay dhalinyarada kuwii muqdisho ka shaqayn jiray kuwii arsamo ka shaqayn jiray kuwii dalkasta ka shaqayn jiray waan ogaa kuwii Rooma joogay waan ogaa waayo Rooma waan tegey Qaahiro waan tegey idaacadahoodana waan soo arkay markaasa meelahaas muska uun baan tegin marka dhalinyaradaas anaa intooda badan muxuu ahaaye sabab u ahaa in ay shaqo ka helaan waxaa ka mid ahaa masalan ba aadan Nuux Dowle عوكة محمد حسن عوكة عدونا يولها يابله هذا اللفتي ساعات عدك سعادة ما هي عجيبة هذا المحلول هذا المحلول مركا راديو مقدشة محمد عبد الدعاء صف يا عم عدك من كان لقى حظي الدائب بيضا يعني مكاس وأنا مكا أنا أن إلي لمن كاسي هدي محوها الشفاء اللقرة وحي بدلي يعني muxuu ahayd idaacadda kor bay u qaadayaan waanay u qaadeen yani marka waxaa kaloo jiray isna oo aan si fiican u wada shaqaynay laakiin anigu aanan shaqada siinin Axmed Ismaaciil Salasar professor weeye marka Amerika wax ka dhiga aad iyo Axmed professorka ahaa aad iyo aad adkar u ahayo cod wanaagsanaayo allah yani maaragtay mar allaaliya markaan ka hadlayo muxuu ahay idaacadda waan xusuustaa isaga laakiin barna ma magacaabin waa ii suuleyn weyday waxaa ku dhacday ma garanayo inaan had iyo jeer ayaa jeclahay oo aad iyo aad baan u wada shaqayn jiray annagoo ishor fadhina weli codkiisu waa sidii weli maaragtay markuu ka hadlayo waxyaabaha aan mararka qaar la yaabo waxaa ka mid a dadkii laga soo qaatay radio muqdisho ee BBC da yimid codkooda waxaad moodaa dad la xulay laba shayba waxaad moodaa Soomaalida in aad loo ilaaliyay raadiyaha dadka ka hadli jiray iyo fanaaniinta cod fiican ay hayeen sidee dadka lagu helaa la yaab lahayd aniga qaarkood intooda badan ana helay Daymar iyo aadan Nuux Dowle waxaan ka soo qaaday muxuu ahaay Muqdisho Kuwait bay ayay joogay markaas oo radio Muqdisho kama shaqeeyeen markaas ka tageen waay marka soo qaaday aadan waxaan ka soo qaaday Hindiya waftigii la socday waftigii buu ka haray markaasa ma ka haray fantastic very good radio waa warsanaysaa markaasaa mar keliya waxaan isuka Idriis Xasan Diiniye Idriis nin cajiib u ahaa cajaa'ib u lahaa waa agency-gu joogay halka filimada marka adigu raadiyaha dowladda ninka ka tago waa ku fiican tahayba waa rabtaa waayo waxay ahaayeen
markii dagaaladu socdeen national asset baa la yidhi hanti qaran ahaayeen hanti qaran bay ahaayeen lama ogoleen inay baxaan aad iyo aad qiimahooda saas ku garanaysa marka weliba cawka mar wuxuu gaaray barayskiisu ciyaartooyda adduunka ugu qaalisan oo kale allahu marka waxaan ka soo qaaday isaga Kampala ayaanu ka soo qaaday marka dalku burburay laakiin cawka lagama siiyan hadduu dalka jiri lahaa kullina lama siiyan midnana lama siiyan aad iyo aad dal qiimo leh oo dadkiisu qiimo leeyahay ayuu ahaa xaaji waa kugu dheereeyey waraysiga waqtigooda iska qabow yahay ugu dambayn noloshaada yaa raad ku leh oo gaar ahaan aad abaal u haysaa inaad cabdullaahi xaaji noqoto abtigay xaaji faaraxayd oo harar deganaa ganacsado weyn ahaa xoolo badan lahaa waa gurigiisa joogay ayaa iskuulka geeyey isagaa geeyey iskuulka ya iskuul carabiga lagu bartaa jiray moogtahay harar kaa inay i geeyaan jeclaan lahaa laakiin isagu wuxuu yidhi muxuu ahaye carabiga waad baran doontaaye iminka waxaad barataa cilmiyadan kale iyo afafkan kale amxaariga iyo ingiriisiga marka kuwa markaad barato carabigana waad baran karaysaa aad iyo aad noloshayda ninka sida weyn doorka weyn ka ciyaaray gaashu ahaa waxaa kale oo doorkayga door weyn ka ciyaarsay noloshayda walaashay aamina xaaji oo waxaanu deganay markaan ku dhashay muxuu ahay wardheer ayaa waxaa aabbahay uu tegey oo u guuray meel u dhow wardheer oo muxuu ahay xoolo ayuu lahaa ari badan iyo dhowr geela iyo ayuu lahaa ari aad u badan marka halkaasaan muxuu ahay ayaa joogay anigoo 4 jira 5 jira ayay noo timid markay noo timid waxay noo keentay dhar iyo sonkor badanna way noo keentay iyo shaah runtii bay noo keentay labada midna ma arag shaay kugu horreeyey waxaanu samaysan jirnay dhir baa jirtay shaaha laga samayn jiro oo muxuu ahaye aada u fiicnaa laakiin rinji maanan heli jirin sonkorna maanan aqoonba marka sonkortii iyo rinjigii markay keentay anugu sonkortii aad baan u cunay wax macaanwaxyaala waa lahaa marka aabbahayda u tirtay waxay tii wiilka waa saxaynaya aab waxaan geynayaa dhagax buur baan tegaynaa ya dhagax buur iskuul baan ku daraynaa waxaa markaa dhagax buur joogtay inaabtiday cusub maxamed xayd marka walaasha alloore nin la oran jiray qabay walaasha aabina marka waaba qof reer lahoo weyn weye markaas hay waa yahay buu yiri way soo kaxaysay muxuu ahaye dhagax buur baanu nimid dhagax buur baan waxaan joogay 8 bilood marka iskuulka waxaa laygu daray dugsi quraanka iskuul quraan ah madarasada oo uu ahaa Sheekh Cali Suufi madarasadiisii baa laygu Sheekh Cali Suufi madarasadiisa dhigatay allahu akbar dhowr bilood markaan baranayay oo carabigiiyo bilaabay quraankiina bilaabay ayaa laga kaxeeyey halkaas walaashay baa i kaxaysay waxay tiri harar baan ku geynayaa abtigay kuu geynaya abtigay bay markaa ii geysay waxay tiri waa kan wiilkan muxuu ahay waxaankaa weeye waxaan ka soo kaxeeyey mehii baan ka soo kaxeeyey dhagax buur baanu tagnay halkaasaan ka soo kaxeeyey marka waa ku kaas abti waa inaa wiilkaa wax bartaa waa yahay buu yiri halkaas ayuu markaa iskuulkii igu daray
برايمري أمحاري هالكا كوبرتي وهالكا ويه بركا صار لمية أيا وحا إيقاطي سكول كيكوية حرر حيلة سلاسة فرس سكول بالأوريجيني وحا انترميديت إيا برايمري سكوتشيغا كابر كاس كبحضو تابعات بالكليس إنجليزيغا عربيغا إيا لغو بريسي إنجليزيغا إيو أمحاريغا إيا لغو بريسي حاجة waxaa ka mid ah marka had noolaato inaad ila dardaarantay barnaamijyada aad dhageysatid wax tala ah waa isdheelayd maanta ayaanle iyo had noolaato si waxaan ku oran lahaa waxaa weeye sidii aan samayn jiray saacado badan waa inaad u hurtaa barnaamijkaaga amba waraysi ha ahaado amba documentary ha ahaado amba waxaad samaynayso ha ahaado wakti badan waa inaad saartaa berri baan qaban doonaa iyo berri waan haystaa muddo badan baan haystaa ma soconayso hadday wax kugu soo dhacan inaad samayso markaa bilow dib ha u dhiganin weligaa ha u dhigan dib barnaamij aad ku tala jirto in aad samayso aad u mahadsantaa waa dhiirigelin fiican waa barnaamijyada ku xiiso geliya had noolaato aad ka daawato aad ka dhegaysato adeegaad ku seexataa allah niman madax oo aad wareysatay kuwii muxuu ahay caanka muxuu ahay caanka kuwii ka tirsanaa iyo dhalinyaro muxuu ahay aqoon-yahano ah oo aad wareysatay ayaa ka mid ahaa oo yani maaragtay aan aad iyo aad u jeclaysay runtii sidaad u wareysanayso iyo su'aalaha yani waxaa ii muuqatay inaad hawl weyn gelisay waraysigaas ood wax raadinayso aad ka shaqaysay uga shaqaysay iyo in aad muxuu ahaayey barnaamijda kale aad samaynaysay iyana aad xoogga saartay waktiga aad u hurtay aad iyo aad waa maasantahay soomaalidu ma jecla in laga sheekeeyo wixii lasoo maray oo taariikhdii ma jecla waxay kuleeyihin hala daayo adigu saad u aragtaa in taariikhdii wax laga barto la baaro oo qof walba xaquu lahaa la siiyo waa sax waa sidaa weeye haddii adigu adan baarin oodan ka shaqaynin yaa ka shaqaynaya taariikhda soomaaliduna waa taariikh unug weeye gaaladu waxay inoo qoreen un baynu qaadanaa waxayna anagu ma dokumenti garayn lama dokumenti garan jirin ilaa imika intii af soomaaliga la qoray af soomaaligu wax weyn u taray wax weyn buu taray qorisiisu aan kuu sheega ee 140 af ayaa baaba'ay markii la waayay far lagu qoro 140 soomaaligu da'diisu waa weyn tahay moogta ayaalo aad iyo aad 2000 buu gaarayaa da'diisu way gaaraysaa araweeda waxay tiri berrina far baan mayrayaaye hay fadhiyo geelo berrina far baan mayraya hay fadhiyo geelo waa af soomaali soo maa aad iyo aad af soomaalina wuu egyahay af soomaalina wuu dhawaaqaya 2000 sannadood baa laga joogaa markay sidaas dhowr araweelaa jiray laakiin taasi waxay ahayd naag aad u xoog badanoo dadka layn jirtay raggu ma jecla taariikhdeeda ma jecla laakiin waxay ku tusaysaa raadka soomaaligu sida uu yahay sidaa inkastuu yahay oo intaasoo sanoo jiray haddana wuxuu ku dhisnaa oo uu ku dhisan yahay imika haddii af soomaaliga aan la qorin muddo badan wuu sii jiri lahaa sababtu waxaa weeye wuxuu leeyahay gabayo geeraaro mahmaho guurow yaa buraanbur intaasoo nooc oo mid kastaaba xikmad uu ku dhisan yahay oo mid kastaaba af soomaali cusub uu leeyahay
erayaleeya cusub ayaa muxuu ahay af soomaaliga ka dhigay inuu noqdo mid sii jira laakiin aakhirka kolley wuu baabi'i lahaa waayo maxamed cabdulla xasan raago ugaas raggaas oo kale ma jiraan iminka way jiraan rag gabayaaya yani maaragtay aada u fiican laakiin intee way sii soconayaan dadka soomaalidu iminka waxay bilaabeenba gabay iyo maba dhegeystaanba xaaji soomaalida raadiyo muqdisho iyo b b c da iyo qayb weyn ay ka lahaayeen ama ku lahaayeen marka laga hadlo afka iyo inuu sii jiro eray bixinta cusub gaar ahaan xaaji waxaa lagu tilmaamaa adiga inaad wax weyn ka qaadatay in eray bixinta af soomaaliga hadda ka hor aad igu tiri xataa miisaan maraad aniga lafteeda cashar siinaysay luqadda soomaaliga si aad u xoojiso waxaad ku miisaantaa qofka reer miyiga ah ma ku fahmayaa waa miisaan aan qaatay ood adiga samayso wey dadka intiisa soo reer miyi maaha imikadanba aad iyo aad markaad tiraa daroogo iyo maandoori qofka keenu garanaya aad iyo aad haddaad tiraahdo maandooriye wuu ku garanaya maandoori waa laga erayo aad sugaysay bravo daroogo ma garanayo muqaadaraad iyo haddaad tiraahdo muqaadaraad iyo dadkaasaan anigu doonayay in aan muxuu ahay wax u sheego markaan idaacadda joogo ma aha ninka dhallinyaradaahe jaamiciga haddaan ilaa dhegeysanayaba ya aad iyo aad wax weyn oo weyn ilaaha weyn ayaad ka tartay ummaddan iyo afkeeda hadda inta markaan joognay xitaa qoraalkii waxa ku jirtay maxay ahayd soomaalida hadda waxa erey lasoo kordhiyey laleeyahay baalfurka buugga baalrog aad tiri baal waa la rogaayo lama furo waa sax weye aad iyo aad maasha allah runta weye ereyada marka erayo aad loogu adkaamaystiray oo maaragtay aanu warwareegi jiray oo aanu erayo kale kusii sharaxi jiray waxaa ka mid ahaa matalan ba ereyga la yidhaaho economic stagnation markii dhaqaaluhu istaago erey soomaaliya marka la rabaa waay aba wax u dhow waay waan fakeray dhaqaala kuududsi baa lii dhaqaala kuududsiyaa ku dhacay waddankaas dhaqaala kuududsi baa ku dhacay waddankaas waa wax kuududsaday wey waa hur dhaqaala kuududsi baa ku dhacay waxaa kaloo muxuu ahay dementia ilowshaha qof markuu yidhaahdo ku dhaca maskaxda taasna waan ka fekeray waayo wax badan buuna soo maraa ereygaas saxaafadda soo maraa iyo idaacaddaba marka waxaa yidhi xusuus gab xaqiiq wey waa qof xusuus gab waa wala erayo isku darta wey dementia marka qof xusuus gabaa ku dhacay qofkii xusuus gab baa ku dhacay khalaas cajiib soo sax maaha aad iyo aad erey u qalmo waa laysaa erey u qalmo wey waxaa kaloo jira ereyga communique oo aad loo isticmaalo waa erey faransiisa ingiriiskooda siduu ahaabuu u qaatay ma bedelin arrin kale ma garanayo inay bedelan iyo in kale marka waa maxay marka ereygaas communique waxaa weeye shir baa dhacaya la qabanaya wada hadallaa madaxweyneyaal samaynayaan qabanayaan 2 saacadood 4 saacadood 6 saacadood bay hadlayaan hadalladii ay ku hadleen oo dhan waa la qoraya waa in la qoraa marka waraaqo badan bay noqonayaan oo sidaa u rasaysan marka idaacad lagama sheegi karayo intaasoo wara waa in lasoo qaataa nuxurka marka communique waan fekeray markaan shaqada ka soo baxoon guriga tago
ayaan fikri jiray inta badan intaanan seexan waay allayda hadaaka waxaan ku macneeyey war daash murtiyeed war murtiyeed waa sax communiquegi waa nuxurkii warka waa war murtiyeed waa haddoo hirgala war murtiyada la soo saaro qof kasta wariye kasta iyo dowlad kasta dowladahaba ku qodaba war murtiyeed ma garanaysaa waxaa kale oo aan muxuu ahaye tarjimay waxaa jiray peace process wax la oran jiray waa israa'iil iyo falastiiniinta wadahadaladii dheeraaye socday meelaha 3-4 sanadood buu socday marka peace process baa la oran jiray peace process war peace processkani waa maxay de waa wax soconaya oo hadalo caynkaas oo nabad looga hadlayo nabad looga hadlayo marka waxaan yidhi geedi socodka nabadda geedi socodka nabad qofkii miyiga joogay geedigii waa fahmaya socodkii wuu fahmaya aad iyo aad geedi socodka nabad wax kalood ku tarjimto waa laga yaabaa inaanu garanin xaqiiq wey maya qaacidada miisaankaad heshaa cajiiba oo aad tiri waa inuu fahmaa qofka miyiga jooga waxaan ka hadlaya haddii uu fahmo waa fiican tahay idaacaddaadii waa fiican tahay way hirgelaysaa marka dadka soomaaliga daneeya hadda kadib qaacidadaas ha qaataan afka waa inay ku miisaamaan in erey bixintaas uu fahmayo qofkii miyiga jooga absolutely ahayd waa sidaa weeye waxaa kale oo muxuu ahaaye aan ku dadaalay inaan tarjimo xasaanadda immunitiga hebel xasaanadii baa laga qaaday koranaya xasaanadiiba uu ku lahaa golaha shacbiga ayaa laga qaaday xasaanad waa carabi laakiin waa la bartay adigu ala kulli xaal dadka magaalada degani way barteen fahmi karaan dadka reermiyigu laakiin xasaanad ma fahmi karaan waan fekeray waxaan idhi waa laba eray ayaan ku micneeyey karaamo daash sharafeed karaamo sharafeedkii ayaa laga xayuubiyey uu ninkaasi ku lahaa baarlamaanka golaha shacbiga ayaa laga xayuubiyey markii ay ku caddaatay in uu musuq maasuq galay cajiib waa karaamo sharafeed waa xasaanad waa run qofkan mas-uuliyaddaas darteed wuxuu ku leeyahay in lagu karaameeyo baarlamaankiiaad ka tirsan tahay waxaad ka tirsan integritigaagii ayaa dhaawacday marka waa karaamadii ayaad wax u dhintay iyo sharaftii labadaba sharaftii baarlamaanka marka taas weliba maqal isticmaalaya xasaanadda ayay aad u isticmaalaan laakiin kolley way isticmaali doonaan marka ereyo badan oo caynkaas ayaa jiray barwaaqa soorankaa ka mid ahaa commonwealthka in loo bixiyo hirgala magacaas barwaaqa sooran waa commonwealth soo maaha commonwealth common wixii loo siman yahay wealth barwaaqadii xoolihii barwaaqa sooran commonwealth taana waxay igu kaliftay dad kama galeene waxaa la qabanayay shirka muxuu ahaye commonwealth conference ayaa lagu qabanayay waddan afrikaana marka commonwealth yani waa muxuu ahaye dalal badan weeye oo ingiriiska hogaamiye marka maxaan u raadi waaye waan raadiyey ereygaa waan helay markiiba b b c-da dhufatay oo sheegtay anigu waxaan ku sameeyey ereyga addis ababa 1965 marka warkaad soo tibinayso wey markaan warka ka akhriyay idaacadda ethiopia ayaa
barwaaqa sooranka sababta xiriirka barwaaqa sooran ka dhexeeyo ee ingiriis hogaamiyo ayaa ku shiraya waddankaas BBC-da markiiba dhufsatay ereygaas oo yani wax u sheegay ma garanaya marka hirgale aad iyo aad tan kale erayo yaryaro waa sideen maxaa buuraleyda golan biyo dhaca Zambezi iyo waa Victoria Falls biyo dhaca biyaha ay qabsanaya dadka soo karkarayaan aad iyo aad marka xaaji wallahi sharaf weyn inoo tahay maanta inaad waqti fiicanna siisay waliba xilli hadda qabuuga soo bilaabanaya wax isleeyahay waqtiga odayga xilligiisa weeye aad iyo aad u mahadsan tahay runtii dardaarankaaga waanadaada iyo waayo aragnimadaad nala wadaagtayna runtii wax la heli kara maaha aad baa u mahadsan ilaahay ha ku sharfo aqri adduunba waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaji aad u mahadsantahay aad mahadsantahay shaqada fiicanad haysana sidaas u sii ballan waa insha allah mahadsantahay xaaji thank you very much waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeenu waa kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid